Seminar aqoon isweydaarsiga oo ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo qabtay odayaasha dhaqanka waxaana soo qaban qaabiyay seminaarkaas hay'adda loo yaqaan CCD waxa warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Saara Cabdullaahi Ciise dad cilmiyeedkan looga hadlaya qaabka ay odayaasha dhaqanka uga shaqayn karaan sidii dalka loogu soo dabaali lahaa xasilooni iyo nabadgelyo ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda wada hadalka bulshada ee magaceeda loo soo gaabiyay CCD dad cilmiyeedka ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah madax dhaqameedyada ku sugan magaalada Muqdisho dhammaan madax dhaqameedyadii ka soo qayb galay dad cilmiyeedka ayaa waxay isku raaceen in la lumiyay ama la wiiqay doorkii odayaasha dhaqanka ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya ugu horeyn ayaa waxa dad cilmiyeedka furay Imaam Maxamed Yuusuf Cali waxana uu mahadceliyay hay'adda CCD waxa uu sheegay imaamku in haddii ay iskaashadaan odayaasha la soo celin karo doorkii ay lahaayeen waxaan nahay dhaqankii Soomaaliyeed waxaan nahay odayaashii gobolka Banaadir dhibaatada jirta maanta Soomaaliya ee satar gobolka Banaadir ay u badan tahay waxaan u mahadcelinaynaa awalan marka hore hay'adda CCD oo isu kayna keenta mar walba oo na tiraahdo dhibaatada ka jirta dalkan iyo dadkan si nabad loogu heli lahayo odayaasha ka warrama nin walba ra'yigiisa laga warsan aqoon waxba xisaabsan yahay haddii aan la yiraahdo dhalinyaro waxbay xisaabsan tahay haweenku waxbay xisaabsan yihiin odayaashana waxbay xisaabsan waa dhaqanka soo jireenka Soomaaliyeed sidoo kale waxa ka hadlay madax dhaqameedyadii ka soo qayb galay waxana ay dhammaan isla falanqeeyeen sidii xal looga gaari lahaa xaaladda dalka iyo doorka odayaasha garabka ugu fiican baan rabnaa odayaasha shaqadiisa la yaqaanaa way toosan tahay hal waxaan dheerahay shaqadaas sida nimanka soo muujiyaan qoleydka kana soo muujiyaan annagana odayaasha shaqada aan salaamu calaykum marka waxay ila tahay doorka weyn ee odayaashu qaataan ma jiraan haddana waxaan dhiirigelinaynaa oon dadka u sheegaynaa ayadoon ununku iska qaban shabaab ma qabsoomayo horumarinta dalka waxaa rabaa dhaqanka iyo maxaan ku yiraahdaa kaljarka markaa lagu jiro in laga dhex aasaaso halkaana ay ka soo baxdo marka gacan ka geysashada horumarinta dalka waxay la mid tahay dadka oo midooba waxay la mid tahay qabyaaladoo dhabarka laga tuuro waxay la mid tahay xaqdarrada oo dhabarka laga tuuro dhaqanku wuxuu leeyahay door aan la ilaabi karin la inkiri karin xaqiiqatan wuxuu ku fadhaa qiimo weyn ku fadhiyaa bulshada ku fadhiyaa waa hogaamiyaasha bulshada waa kuwa bulshada haga dib hadduu imaado ku dhex orda ku hagoogta wax ka qabta arrimahaas odayaasha waxa ay ahaayeen kuwa qayb weyn ka soo qaatay dhismihii dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya Saara Cabdullaahi Ciise TV caalamiga ah Samsa magaalada Muqdisho